kuma soo koobi karno hadalla aan afka ka dhahno waxa qalbiyadeenna idinkugu jira wanaagga iyo qiimaha aad ku leedihiin qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna wanaagga aad ku leedihiin qalbiyada madaxda Soomaaliyeed wanaagga aad ku leedihiin dhammaan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed waxaad ogaataan nimanka argagixisada ah ee dhiigmiiratada ah ee go'aankoodu yahay baabi'inta iyo laynta dabargoynta dadka Soomaaliyeed boobka iyo dhaca ay ku hayaan hantidooda banaysashada dhiigooda iyo maalkooda in aanay haysan gacan aan adinka ahayn oo ka dul qaadaysa midka aad ka soo dul qaadeen waa ku faraxsan inaad ka soo dul qaadeen midka dhimanna wuxuu idinka sugayaa inaad ku dul qaadaan mana dareemi doonaan wax xurriyad ah iyo wax nolol ah inta ay dul saaran yihiin nimanka argagixisada ah waxaan rabaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad oo halkaan aan maanta idinkugu nimiday aniga iyo wasiirka gaashaandhigaba iyo guud ahaan saraakiisha qiimaha badan ee nala socota inaan idin dhahno waad mahadsantihiin sababtoo ah qofka bannaystay inuu dilo walaalkii inuu dilo aabihiis inuu dilo hooyadiis inuu dilo walaashiis qofka bannaystay ma dhihi karnaa aqliyad bini'aadinyaa ku jirta ma dhihi karnaa ma dhihi karno laakiin waxaan isleeyahay dabcan xanuunka ay arkeen awgiis kuwa duurka ku dhuumaalaysanaya ee hawdka ku jira waxaan leenahay isu soo dhiiba ciidamada qaranka isu soo dhiiba ciidamada qaranka ma jiro joys kale aad haysataan oo aan ka ahayn inaad bulshada dib ugu soo laabataan danuubtii iyo dembiyadii aad ka gasheenna aad mar kale ka codsataan bulshada Soomaaliyeed inay idin cafiyaan haddii aanay taasu dhicin ma ka hari karnaa kama harayno tabartoorana waa aragteen masaafada aad ogtihiin aad ka timideen inta aad ogtihiin aad soo dhaxmarteen dhul ay ku dhibaataynayeen bulshada Soomaaliyeed meelihii ugu dambeeyay ay ku dhuumaalaysanayeen uga daba timideen casharka aad ugu dhigteenna waad ogtihiin runtii aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa xaqiiqatanka wanaagga qalbiyadeenna idinkugu jira iyo farxadda aan saaka idinku faraxsannahay awgeed aad iyo aad u mahadsantihiin